عقاشي علمدو عيلك نقصار كوعديني عدك سيا علي حاجي سيا munaasabadani lagu taageerayay mudane cali xaaji warsame oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Puntland isla markaana ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Puntland ee dalkani Kenya ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin waxgarad haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi mas'uuliyiintii ka hadlay munaasabada uu hambaliyay gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen musharax cali xaaji warsame iyagoona xildhibaanada ka codsaday inay u doortaan xilka madaxweynaha waxaan ku taageeraynaa musharax madaxweyne dictor cali xaaji warsame baan ku taageeraynaa cali xaaji waa nin wadaniya waa nin sheekha waa nin culimo waa nin aqoonyahana waa nin aan filayno in dalka wax weyn u tari doono dadkaan ugu hanweynahay xilkaa inay qabtaan uu ka mid yahay baarlamaanka waxaanu leenahay codkiina u meeldaya oo annagana loo doorta qof maaragtay nagu haga horumarka nagu haga oo nabadgelyada nagu haga munaasabadani waxay ku suntan tahay ama calaamadeedu tahay musharaxiinta Puntland oday kamid ah oo magaciisu yahay cali xaaji warsame yaa loo maaragtay gogoshan loo dhigay ama lagu taageeraya waxaan rabaa inaan laba qodob ka hormarsado tan cali midda ugu horeysa odaygii iga horeeyay Cabdinaasir Sayid oo aad wada garanaysaan intii uu yiri baan la wadaagaa waxaan adkaynayaa oo aan rabaa ugu horeyn inaan la hadlo baarlamaanka Puntland oo maanta guushoodii ugu horeysay gaaray oo macnaheedu tahay hoggaankoodii inay doorteen hoggaanka waan soo dhaweynayaa waan u hambalyaynayaa Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed naanaystiisu tahay iyo labadiisa ku xigeen abukaataha iyo kalabaadba dhammaan waxaan idin leeyahay hambalyo wax fiican guul fiican baad gaadheen xaajiyo hadii ilaahay uu ku yeelo oo aad garow oday u noqotid nin meesha shaqo u doontay ha noqonin khaadin insha Allah hadii ilaahay noo khaadintid oo jamhuuriyadda isla saxo oo koran isugu imaanay raqban cali fariintaas laga gaarsiin insha Allah nin reebari oo isla bari shaqo ka helay ha noqonin insha Allah nin jamhuuriyadda u kaca hankii hore iyo miladiisii iyo horumarkii uu ku taamay wali sidii uu wata oo aan loodin karin sidii aan ugu naqan insha Allah noqo waxaan rabaa reer Puntland inaan la hadlo maantay ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu wax aysan adoomadiisa kale aqoonin uu ku baro oo waxaysan fahansaneyn uu ku fahansiiyo oo wax dadku aanay garanayn uu ku garansiiyo macnaheedu waa inaad dadka ka sarreysid oo xadaari tahay oo libaax tahay oo dadka oo dhan ay eegayeen macnaheedu waxa weeyaan ilaahay inuu ku saaray mas'uuliyad kale oo dheeraad oo lagu kalifay la rabo inaad qaadintid waxaan rabaa inaan iraahdo ama ka mahadceliyo doorashooyinkii maanta ka qabsoomay magaalada madaxda Puntland ee Garowe quruxda badnaa waxaan leenahay xildhibaanada sharafta leh oo 66 ka tallaabadii ugu horeysay oo la qaadeen miradhalkeedii waa aragnay waxaan idinka sugaynaa tallaabada labaad oo aad qaadi doontaan oo ah inaad soo doortaan madaxweynaha ku xigeen waxaan rabaa inaan iraahdo maadaama xafladda loo dhigay ay qaas u tahay musharax madaxweyne cali xaaji warsame anigu sidii dadkii hore lahaayeen haddii khayr ku jira dhihi maayo mar dib ugu foga la dhibay waxaan leeyahay gal iyo gardarro Allah ku siiyo. So by electing Ali Haji, we're not only electing the future, we are leaving a legacy for the coming generations. Dr. Ali Haji, Danta Dinta Idalka. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد والله اللي يرجع وعلى محمد علي حاجي أو جو سلام نيروبي خاصة نسلي وحن أعدو تاجيريا مدن علي حاجي ورسمة وحن أكو تاجيري ما دام ويهاي من أهل شرف أهل دينه أو دين الإسلام كمان تيوح بدن كقوانا يوم ركوب بوليستو وحن ورجعنا إن شاء الله تعالى إنه كوب بوليستو حلكة. هذه أد وحن وهم بلينا على حاجي ورسمة أنه سنة قانو ما هاي لبا قطوة ولا لا المادرتي كسوكو صاحبان النهي شقوي كسوق بتاعت كمان قمين كنا كان وايد عدم بالله وايد إنه كبرية
mideeda kale halkan waxaan rabaa inaan ka sheego inaan u sharaxnahay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya Alxaaji Warsamena waxaan leeyahay guul iyo gobonimo ilaahay hadduu kugu guuleeyana midii qaybtaada ilaahay inuu ku asturo maanta waxay ii taagan farxadood gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waa abtigay hooyadii la dhashay waa ninkii soo geliyay aniga dugsiga baan soo baray iskoolka ka saaray abtiga koorasa waan baliyay talabaad gabadha ku xigeen baan baliyay saddex baarlamaanka sharafta mudan Puntland baan waan baliyay oo wanaagsan oo qoonta dhalinyarada saddex aniga cali waas naqaanaa ilaa iyo kuwa gabadha jooga boosaaso si fiican baan isku naqaanaa in fiican oo erdiin weeye ganacsan wahaa in akhlaaq leh oo diin oo iimaan weeye waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ku guulaysto xilka madaxweynenimada Puntland waxaan markaa qayb ugu dhigay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo musharaxiinta dhammaantooda idin khaas ahaan cali xaaji warsame intuu wasaaradda waxbarashada hayay waxaan u leeyahay aqoon aad u dheer anigoo hadda ka hor joogo meel baadiyaa wiil fanfoor aan ugu baadiye waxaan ku leeyahay fanfoor baa tahay sidee aad taxaabka ogaanaysaa taxaabkaaga sidee ku ogaanaysaa wuxuu walaale traffic bawdi saasiyo ugu horumar taxaabkiisu suuqaa cusub dhigay waxaan ku xasuustaa badan munaasabada ugu taageeraya musharax cali xaaji warsame kasoo qayb galay anigana waxaan leeyahay cali xaaji ninkii caanaha cod ciidan canan kale codkiina siiya waxaan soo dhaweynayaa musharax cali xaaji warsame ilaahay waxaan ka baryaynaa Puntland sanadkan ilaahay mid khayr qabo inuu noo keeno oo dadkiisa iyo dadkiisa anfaca intaas ayaan ka baryaynaa hadalka dheerameeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام waxaan meeshaan uga qaliyeenaya cali xaaji warsame xilkiisa ilaahay inuu ku guuleeyo إن شاء الله. يا مولانا على حاجة وسمع وحنا يا مولانا نقول مدحوينين بداية أنا مريم محمد دنيا وحنا كان رقم مليان يا على حاجة وسمع مدحوينها بتبلان ما هي مشرحي ومدحوينه. مشرحين باران على حاجة وسمع waxaan soo dhaweynayaa baarlamaanka sharafta leh oo doortay gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsanayaa inay nin ilaahay ka baqa noo doortaan mid iyo ilaahay ka baqa iyaguna inay ilaahay ka baqaan nin ilaahay ka baqana inay noo doortaan xafladda oo sidoo kale lagu soo bandhigay heesa gubaaba ah ayaa abwaanad cusub waxa ayna halkaasi ka tirisay tix buraanbur ah oo ay ku amaantay musharax cali xaaji warsame والعوي علي حاجي ورسمان ومرينيا بلا مري ما يامنتي سوى مقصود عليك شنت قيس لحي قالوا ليه ورسيبا مدحوي الرقي مرتدي سوتاي اسواء الرقيل حابوك ودياي والعبد الرزاق حاجي حسين بوصل قابوياي مركانو ميري وين المشحرة ديلا intii ay socotay munaasabada taageerada ayaa murashax cali xaaji oo qadka telefoonka uga qayb galay ayaa waxa uu mahadceliyay ka qaybgalayaashii munaasabada isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee Puntland waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa dhammaan dadka isugu yimid xafladan taageerada ah oo ay taageerayaan aniga xilka madaxweynenimada Puntland sanadka 2019 waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu nabadiga khayr aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagu waxaanu joognaa dalkii dalku aad iyo aad buu fiican yahay rajada ummaddu waa ay sarraysaa baarlamaankeeda maanta waxaa soo galay dad dhalinyaro ah oo boqolkiiba 45 daadoodu ay ka yartahay 40 sano dadkaasi rajo weyn bay ku leeyihiin Puntland mustaqbalkeeda iyo taariikhdeeda waxaan aaminsanahay Puntland inay guuleysanayso annagu ka musharaxiin ahaan waxaan ka rabaa inaanu Puntland u hiilino inaanu magaceeda kor u qaadno inaanu amnigeeda xoojino inaanu doorasho fara oo xalaala galno inaanu magaca ummadda Soomaaliyeed kor u qaadno inaanu ku faano doorashada ka soo baxday natiijada ka imaanaysa mid xor ah oo xalaal ah oo
guulaystay iyo kii ka guulaysan oo ku qanco الله يشرفه الله يشرفه وحين يشكره لهاي إنه ضدكنا يضدكنا وفينا إنه ضدنا وفينا إنه الصومالي وفينا إنه السوي وفينا وسوي لنا إنه اليابان وفينا إنه الكبرياء وفينا إنه الكيل كان وفينا إنه الأرضية نبدأ هذه وفينا إنه وطن كان أمن كيف سبحانه وتعالى هذه أصلا ما تنتهي وليس إلا يعني cali xaaji warsame ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad ee loo badinayo inay ku guuleystaan xilka madaxweynaha Puntland ee sanada 2019 ilaa 2023. Wow.